ترين ألكسندر أرنولد wuxuu qayb ka yahay daafacyada ugu muhiimsan kooxda Liverpool inta badan waa mid ay raadiyaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ah ugu horeysa Real Madrid hadal ayaa ka soo yiri 2021 waa kooxda kaliya aan weligii aqaano waa waqti sharaf leh had iyo jeer waxaan ku noolahay riyadan maalin walba taasi waxay ahayd hadaladii Arnold uu yiri 2021 waxaa yaab leh in laga fikiro in 130 maalmood gudahood astaanta Liverpool ay xor u noqon doonto inuu bilaabo wada hadalla soo afjari karta riyadiisa guud ahaan Yurub kooxaha waaweyn ayaa si la yaab leh u daawan doona iyagoo si dhab ah u rumaysanaya in ay kali ku heli karaan dahabka dhalaalaya xagaaga soo socda si bilaasha tani waa faa'iida laadarka suuqa iibsiga Florentino Perez ka indhaha la raacaya xaaladda xidiga iyo Dani Carvajal uu soo galay mugdi mustaqbalkiisa Bernabeu Perez ayaan u arka booskaas inuu buuxin karo kaliya Arnold inuusan isaga wax lacag ka bixin waxay la mid tahay inuu maalin cad bangi dhacay oo kaamirooyinka ammaanku uu ku dhajiyay xanjo si raadkiisa loo helin daaqada kala iibsiga gaar ahaan kan xagaaga waa had iyo jeer ay la yimaadaan buuq badan oo ku saabsan Liverpool waxaa jira qaybo ka mid ah taageerayaasha gaar ahaan kuwa cadcadka ama codka ku leh qadka tooska kuwa xooga saaray ganacsiga la sameeyo halkii ay ka haan lahaayeen natiijooyin saa darteed dhowrkii bilood la soo dhaafay ayaa si gaar ah ay u eegayaan xilligan go'aanka Martin Zubimendi uu ku joogi doono Real Sociedad isbuucii hore ayaa qarxiyay shucuurta iyadoo ay caro ku dhacday milkiilayaasha Feyenoord Sports Group iyo agaasimaha cusub ee ciyaaraha Roger Hagis iyadoo ku guuldareystay inay helaan lambar 6 ee Liverpool u muuqato inay u baahan tahay xilli walba waxaa jira 132 kooxood oo kubadda cagta ah oo ku kala baahsan toddobada qaybood ee ugu sareeya Yurub waana cajiib ah Liverpool ayna ciyaartoy la soo wareegeen 24 waxay rabaan inta ay saxaan inkastoo ay muddo bila isku dayeen in Valencia heshiis kala gaaraan golaha reer Georgia Giroud lagu magacaabo qaar badan ayaa hadda la yaabi doona inuu sameyn doono si dhab ah markay timaado bisha May wax kasta oo dhaqaalaha oo ku lug leh qandaraas cusub waa in si kale loo eego waxay ku kacaysaa madax furasho boqor si loo helo ciyaaryahan leh awood isku mid ah laakiin laf dhabarka kooxda Liverpool waa mid aan la bedeli karin waa kooxda kaliya ee ibid uu yaqaan iyaga ay ku xiran tahay inay heestaan iyo inay fasaxaan laakiin gabagabada sheekada ogow haddii Liverpool ay fasaxdo Arnold waa koox xaqiiqdii aad u waalan Real mana kama quusan doonto Carvajal bedelkiisa inay ka dhigto ninka lagu magacaabo Trent Alexander-Arnold